السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بايدي سلامين دمان انتو كحين يوتيوب جنرال كي فرحي سومال اوفيشيال وقبليني فرحي سومال اوفيشيال إلى هذه شرفو هذا مروجي سنتا هذا دعونا مروجة الله كخاله هذا فرح سنتا فرح هذا له كوسياديو هذا حنو سنتا إلى عفمتك كوسيو هذا عفمت قبتين إلى سبحانه وتعالى عفمتك كوسياديو إن دمان هو ينك الصوماليد الموضوع دور كوجر إلى حق كبرينا إلى إنه الموضوع usoo celiyo dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed ubadkooda cadow gacanta ku haysta Ilaahay ugu soo furfuro ee kamid tahay ee ugu badan tahay walaasheen Faadimo Buraanbur iyo walaalkeen Maxamuud insha Allah ta'ala Ilaahay waxaan ka baryaynaa ubadkooda Ilaahay inuu soo celiyo aan la farxno oo aan murugta aan maaragtay maanta la wadaagayna birna farxadooda aan la qaybsano insha Allah ta'ala aad baan idin salaamaya Ilaahay idin sharfo dhamaantiin inta markaan kaga gudbo aniga barnaamijka aan ka hadlaayo oo taxanaha ah oo noo socdo waad ogtihiin waxay tahay arrimaha qoyska burburay ubadku Ilaahay u bixi u ka dhaxbeeray qoyskaas burburay muxuu la kulmi karaa maxaa caqabado ah oo la kulmi karaa hadalkayga aan idii wado aan u gudgalo laakiin markasta waxaan jeclaa hal eray inaan ku soo dhaxdarsado oo ah laba dibi meesha isku dagaasho coos baa ku baabaa marka aabihii iyo hooyada meesha ay ku culuwaan ubadkoodii baa ku baabaa runta hal isku sheegay in adeerayaalo dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed waan ogahay boqolkiiba ma aragtay boqolkiiba shukran ahaadaya geedka codkaana gelinin igaraal noqdo geedka codka inaan geliya raba haaraa lahaa xoga codka inuu laciif noqdaan ka cabsanaya igaraal noqdo warkan waa sii wadaaya hooyooyinka Soomaaliyeed boqolkiiba 90 ayaga ku dhibtoodo 10 ama aragtay ayaga naftikooda waxa waaye ma sahlan sheekadu waxa waaye la xaqaani la raba ma ahan dumarka inay wada fiican yihiin ما هن إنه رجنا وذحين يحي لكن وحواي ولو كل بدين يحي بقول كيوا سجاشن رجع الصوماليات ليه يحي دل يدبت وحي كدكتين عادة بيكدكتين نفهمت وحي كدكتين عادو إنه هو ينك إلمه كضيعان إيه هو إذا مركي فراني إلما يفران سؤال شيء دور مرة ويدي رجع الصوماليات وأنا يجي جواب الأهين waxaa dhahay idinka marka dumarka furtaan maxaa idinkana ubadkana u furtaan ma hooyada saddex ku qabtay ma suuliga adiga Ilaahay ku sii baad saddex ku qabtay sidaad ogtahan furinka xaga min Allah ku yimaada labada qof isfahmaysa Allah waasa wala isfahmi way furinka waa sabab ama dumarku ka iimaana ama raggu ka iimaanaya hooyadu ka iimaana saabaha yani abaha du gabadhan isfahmi waayeen oo furo oo dalaaqdeeda dhag ku siiyo yani qalad ma lahan hooyadan hadii ninkan ka soo boodeen nacday ee dhahday furiina raba ee dalbato yani bila sabab la'aan abdan bi laakiin sabab wuxuu sabab leeyahay qof inta shalay ku soo guursaday guri kula imaaday ama gacal soo xabiibto love you ku dhahay oo ku imaaday micna darar horta kugu furay لازم وإنا في شيء وحلا جران هاي قبلنا شال جعلك كسر عليه إكاد سوق رجلا واجرا لكن مركي فرين إكاد البطوة واحد أذي إكاركت يعني صوب الآن ما جرت هذه أما هو صوب حكوي ماذا فرين كجورجس بربركيسة أما أباها حكوي ماذا مركي أدنى لقملها أنت وأدنى لقملها فرين وإله سبحانه وتعالى باكينه هادو فرين دنبيها إله ما كان لها وحل وايو oo labadan qof ku kala weedaarsan karaan aan kala weedaarsanay waraawo maalin wacan Allah tartiib loo kala weedaarsanaa in la sfuro dambi ma aha laakiin waxa qalad ah in ilmo la isku dayaco waxa qalad ah cunigaagi adiga aad dhashin masqas lagu soo googooy ilmahaagi ina ninku xumeysay aad asig baa ka tagaani maxaa حي أقدر أنا حجابك كقالت وقالت وهذا مقص
adaa u walacday adaa caloosha culeys u qaaday adaa maqas lagu mariyey adiga maxay ya waqti dhibkaa lasoo martay waa qalad ina nin hooyo intaas soo dhasho hawa bar kala soo dhashay adama dhilo ninkaas haddaad isfahmi wayseen duurkii soo maray aad mid kale ka raadso laakiin ubadkaaga ilaahay ku sii wuxuu ilaahay ku sii waaya abaa jidka ugu dhaqaaq ibo adigana i daawanaysid hooyadan ayadoo socotad aragti 20 jir ah haddaad isfahmi wayseen ha ku xumaynin ubadka adiga aa dhashay maxaa ku xumaynay hooyadan xanaanada iyo hooyadiis cunugan wax u dhaamo malaadeer ama bood ama dhac hooyo ummi qof u dhaamo malaha anfad inaad adiga aad ku dhaadhay ciil dartiis saas safro u dhacay iyo ama adiga cudur daara iyo wax aad ka cunugeega idiga maseesaad raad ee gabadh aad ku gooyso cunugii gabadh cunuga kaligeed kula qofto la dhacdo mustaqbalka marka cunugaagi wiilkaagi gabadhaadi ilaahay ku siiyay ma waxaad jeceshahay in ay calooshooda kuu saafi noqoto qalbigooda nadiif oo ku noqdo qalbigooda ma ku noqonayo nadiif si kasta ay baari kugu noqdaan waxaad ogaataa 20 mar inuu qalbiga uu ka gubanayo adigana aad ka gubanaysid fahanti waayo cunugaaga shala dayacday wax badan aan ka hadli doonaa barnaamijkaas hore u soconaya waana ka hadli doonaa waana arrimo wacyigelin waana maxalladad badana insha Allah ila soo xiriiray dad badan aan wareysi ka qaadi doonaa anaga waa wadaynaa wali qof qoyska burburay arrimaha qoyska burburay ubadka furiinka markuu yimaado ilmaha ku rafaadaya biri maxaa aqabadaha ay la kulmayaan cid ka hadlaysa markay anaa bilaaba waana ka hadlaa waayo khibrada uu leeyahay qof kasta wuxuu khibrad u leeyahay buu qabtaa maanta waxa ku soo takhasustay jaamacad markaa ugu soo baxday waad ku shaqaysanay aniga maanta waxaad u leeyahay khibrad iyo maskax iyo aqliyan iyo wax badan oo ogahay fahanti single motherada waxaan leeyahay guuleystaan dal iyo dibid meesha joogtaan single mother waxaan leeyahay hore u socdo single mother banahay hooyo samiirtay banahay mid sarihiga tanahay single mother banahay hooyo samiirtay banahay mid sarihiga tanahay marka single mother guuleysto caruurtayda sabiga silac waan ka dhowraa saniban u koriya marka ubadka ilaaha nala koriyo dumarkeena Soomaaliyeed 90% way dhibaataysan yihiin dal iyo dibad ayaga stress macna rafaad ku jiro ku rafaadsan ku bahdilan insha Allah marka waa laga bixi doonaa raggeena Soomaaliyeed 90% xaq Allah siiyo tobanka nadiifkan waxa idin leeyahay idin jeclahay waa gabadhiina runta ka hadlayso inaad igu garab siisiinaan rabaa waad ogtahay wiil wanaagsan hadda tahay hooyada abaalka ay leedahay gabar waxay tahay ogtahay way kula dhalatay waayo marka hore lagu soo barbaariyay gabadhaas waa walaasha gabadhaas waa hooyada adiguna qof wanaagsan baa tahay tobanka wiil oo nadiifkan ka hadla aniga nala dhashay oo garabkeena taagan maalin kasta naga dhaha waraabayaasha maalin kasta ragaana nafdeexeena maalin kasta ragaan meel nagu haysto maalin kasta anaga nala fadeexeena maalin kasta waan laga oysiyaa tii ilmo laga qaato tii ilmo xoog looga qaatay ilmo lagu dayactay la fadeexay dhammaan dumarka Soomaaliyeed ayaga meel kasta ku bahdilan laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu idin jeedaa in taas markaad qof oo muslim oo walaalka adiwaatiis adna waa laga gooyaa Ilaahay baa idin xisaabtama maanta anaga garab Ilaahay noo iyo tobankeena wiilo nadiifka war kale diimahay laakiin barnaamijkan taxanaha wuu soconayaa wiil iyo gabar looma kala reebay dumarka awado fiican yihiin midhahay raggan waa wada xun yahay midhahay laakiin waa loo kala badan yahay ilmaha markuu qoyska burburo sababta oo koow ilmaha la dayacaya ragga u badan runta laga hadlaaya aan runta ka hadlaaya been ma iigu iimaanaysin ragga u badan dumarka hooyo ma dhigayso cunugeeda si sahal ah hal iyo labo qalbi xajar waa jiraan hal iyo labo way jiraan hal iyo labo wax oo iska gaaban waay
laakiin inta badan waa kuwan u dhabar adeega wadanka ku burbursan dal iyo dibadna eegala ilmahooda jiidaya sii jiidaya soo jiidaya runta la isku sheegay insha Allah tacaala waxaan idiga tagaa sidaas nabadgeli video mid ka xiga waxaan idin leeyahay fadlan hadda ku cusub tahay subscribe like comment share waa lacag ma ka gadmo anigana dhiirgelin bay tahay hore loo soconayo waa gabadhiini barnaamij kasta xanaan waa idin bilaabanayo insha Allah qof kasto ila soo xiriirina waa soo wareysanaya diyaar kanaalkayga waa soo gelinaya insha Allah dad badan soo wadaaya ka hadli doona barnaamijyo badan insha Allah. Assalamu alaykum.